aragtaan waa lamaanayaashii iscalmaday ee xukuumaddu ugu talagashay arooskani 19ka lamaane oo si toos ah idin uga daawanaysaan magaalada Jijjiga xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya lamaanayaashan oo ah lamaanayaal ay iyagu iscalmaday isla ahaantaana xukuumaddu ay si ka bixisay kharashka guurkooda waana guul weyn oo u soo yeetay guud ahaanba shacabka Soomaalida Itoobiya waxaa si toos ah ay xafladan uga socotaa hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan dhalinyaro kala duwan ayaa ka faa'iideysanaysa fursadan ay siisay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo iyadu ah mid mar walba dadaal ugu jirta sidii shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ugu samayn lahayd qaybaha kala duwan ee horumarka xukuumaddu ka sokow mashaariicda horumarineed waxay dadaal gelisay in dhalinyarada deegaanka Soomaalida Itoobiya ay u samayso fursado dhanka nolol abuurka oo ay ka mid yihiin aroosyada lamaanayaasha iscalmaday oo ay daawanaysaan sida xafladan quruxda badan leh ay uga dhacayso xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jijjiga waana lamaanayaal kala duwan oo idin salaamaya waa xaflad aad iyo aad u qaali ah oo arkaysaan halkan waa telefishinka caalamiga Universal oo idinku soo tabinaya xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jijjiga aad baan u salaamaya maxamed aad baan u salaamaya هذا محمد ومن كمل حرسنا سيالاتك هذا نسلامنا اللي يرى كل دوانة كفاية ليسانيسا وعام في اليد ودياشينا قيمة يقدرين تمضن إلي أركان